xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay xildhibaan Axmed Shikh oo ka yimid dalka Soomaaliya isla markaana kamid ah xildhibaanada ugu caansan siyaasadda dalka Soomaaliya xildhibaanka ayaa halkan waxa ku soo dhaweeyay inta badan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ugu horeeyna waxa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ahna milkiilaha maqaayadda Rayaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاوي oo taariikhdu tahay 25kii bishii 8aad 2020 waxa martin noo ah aniga iyo saaxiibadeeda garbahayga fadhida xildhibaan Axmed Shikh oo ka yimi ka soo baxoolay wadanka Soomaaliya caawina martin noo ah UK gaar ahaan magaalada London waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow waxaad caaw marti u tahay ummadaadii aad matalaysay oo aanu ugu horeeyo oo walaalahay garbahayga fadhiyaan oo rag iyo dumar ka kooban hoolku waa buuxa caaw looma kala maqnaa waxaan leenahay qalbi furan iyo gacmo furan iyo waji furan ku soo dhawow kuna sii dhawow hadii ilaahay سياسي جوين دلك الصومالي مالمها دوضها لو قبرت مصطفى أي أصلا سيدو كلا كهذا هالكاسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شرف إيتها مانتا إن كقيب جلا كلن كان قيمها بدن لوسو دوين حلبان كعصب حلبان أحمد شريف runtii fursad weyn ay tahay anoo aaminsan xildhibaan Axmed inuu yahay nin ummadda dadka Soomaaliyeed wax weyn ku soo kordhin doona waliba garab u noqonaya codna u ah dadka Soomaaliyeed kuwooda ugu baahan in maanta loo hadlo waa nin karti iyo wanaag iyo aqoon iyo cilmi intaba leh marka aad baan runtii u soo dhaweynaa asagana Allah la garab galo allana ha u fududeeyo sharaf iyo wanaag ay noo tahay waana mahadsantihiin sidoo kale xafladda waxa ka hadlay Maxamed Shariif oo maalmahan ku soo canbaxay riwaayadaha qoto iyo xujo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan caaw isugu imaanay barnaamijkan xafladda aan ku maamusaynay xildhibaankeena Axmed Shikh oo martinoo yahay restaurantka Rayaan waxaan ka filaynaa insha Allah wadanka markuu ku laabtana in uu dadkiisa iyo dalkiisa wax u taro waana ogahay inuu yahay nin howlkar leh waa mahadsantiin dhanka kale codbaayaha waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha garaashka weyn ee Eastiga mudana biid bismillaahir rahmaanir rahiim anoo maanta oo farax xildhibaankeena oo Soomaaliya nooga yimid injineer Axmed insha Allah kartida uu leeyahay inuu wax noo qaban doono haddaan nahay dadka oo yani la hargaday insha Allah meeshaan ugu baxo salaamu calaykum injineer Xabiib ayaa sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la kulmo injineer Axmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta anagoo xildhibaan injineer Axmed walaalkeena codkeena aan dhamaanteen aan wada siinay waa mustaqbalka berito aan ka sugayna marka uu dalka ku laabtana wuxuu qaban lahaa asay u taala marka inta waa ku soo dhaweyn caawada xafladan aan u qabanay xildhibaan injineer Axmed uu ku mahadsan yahay thank you very much sidoo kale xafladda waxa ka hadlay injineer Muuye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو وحن كسو دوينينا حلوان أحمد شيخ إنجينير كنا مقايد ريان أن كسو دوينينا إن شاء الله حلوان كأنه واحتر وعياله بدن وكسو مين دونه مقالة مقدسة إن شاء الله وكاس عليكم ورحمة الله وبركاته. عام عنكم فرح سنة هاي يوم الصومالية دو ولدين كان ودي جوجنا عنكم وده كلنا مرتا إن شاء الله أرنتهنا تيجي في الصومالية يبقى تجرا وحن نوم البجاسين إن شاء الله خير مرتا ومد الصومالية لن مالو بالجوجان عن ورجينا يا هم باليوم محمد داعد صومالي كيبل لندن